qayb qaado ololaha waraabi walaalka ee idaacadda kulmiye FM waxay doonaysaa inay waraabiso kumanaan qoys oo oon la ildaran. Kumanaankan Soomaalida waxaa ka guuray goobihii ay biyaha ka raacanayeen, waxa ay oon haraad iyo gaajo baan ku haysaa dhul hoog ah, xoolahoodina waa ay ka dhamaadeen. halkani waa magaalada Ruudus oo ka tirsan Soomaaliya Gaarsa waan maanta si rasmi ah ugu daafurnay barnaamijkeena waraabi walaalka ooman. magaalada tani ma goobta markaan imaanay waxa arkaysaa in oonka jiro haraadka dhibaatooyin ka muuqda mid aad u daran. inta wadada haynay waxaan la kulanay caruur yar oo xoolo jira oo wadooyinka ku soo cararaya maadaama aysan jirin goobo kale ay aadi karaan xilliga roobaadkan oo soo daahay roobka darta ay soo daahday. marka fadlan walaal barnaamijka ka soo qaado barnaamijka waraabi walaalka ka soo qaado walaalka oo soo waraabi hal litro biyo ah si walaalka ha ku oombaxee. waxaan walaalaha ka sugaynaa sida noo soo caawiyeen inta kale ee daawanayso dadkan oo hadii Ilaahay yiraahdo tabaalaysan oo oon la tabaalaysan inay nala soo kaalmeeyo oo sidii gabadha fartuun jannada gashay jannada ay u gashay hadii Ilaahay yiraahdo dad janno saac u dalbanayo uu maartay dadkan walaalaha uu soo kaalmeeyo. idaacadda kulmiye waxa ay maanta 15 booyadood ee ugu horeeyeen gaarsiisay deegaano ay xaaladoodii aad u liidatay. fadlan ka qayb qaado soona waraabi walaalkaagan ooman. marka waxa waaye in biyo la gadan waayo iyo dadka danta ku leeftay oo dhibaato ku keentay. marka waxaan rabnaa dadka ummadda muslimiinta inay muuqaalkan iyo idaacaddan iyo codkaan naga intay maqlaan ay la baxaan nin walba sidqo oo la baxo oo islaamka walaalka taageero aan siiyo gacanta Ilaahay baa lagu dhargi waa bini aadan waxan dadkan nin walba wuxuu baxsadan asaas kale rabbiga arkaa biyahan gabadhi bixisay intan oo khalaayig maanta ku noolaatay rabbiga arkaa waxa loo bariiba ma aha Ilaahay baan u barinay Allah barakeeyo. marka nin walow dadka ninkii mas'uulahow dadkaadi iyo duunyadaadi iyo khalaayigta meesha ku noolaad waxa ka qaban karta ka qabo. guddiga gargaarka ee waraabi walaalka waxaad kala soo xiriiri kartaa eber 7 48 71 64 eber 4 ama waa eber 7 15 12 50 ha idinkugu celiye waa eber 7 48 71 64 eber 4 ama waa eber 7 15 12 50 53